صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وتحانهني كصاب سنة نفقد درت أباهن تهاي ما أنت وحن قادن دون هدي إلهي إدمو عشر كتوكو يوتوبنات وحو كصاب سيهي عريها لو يقانو مارتا نانيستا عريها مارتا وعاو وعريها سقالي لابتناد كالكلك عرياشا مارتا وبر كميدا عرياشا كالجورك كالكلك عرياشا تراتم كدوا سقالي لابتن culays atamkeeduna waa 63.546 kaaftoonkeeduna waxaa weeye hal ama waa labo. maartu waxay ka mid tahay curiyaasha yaryar ee loo yaqaano trace elements ee dhirtu u baahan tahay. dhirtu waxay nuugtaa iyada oo ah ayoonka kobar oo ah positive 2. waxtarka maarta maartu waxay ka qayb qaadataa dhismaha enzyemyada qaar waxayna door muhiim ah ka qaadataa falgallada oxidant yareynta ee dhirta dhexdeeda ka dhaca. waxaa la aaminsan yahay inay lama huraan u tahay samaynta chlorophyllka ama cagaariyaha waxaana suuragal ah inay kaalin ka qaadato shaqada ilays cunto ku samaysashada ee dhirta. chlorophyll waa maadada fududaysa in dhirtu cuntadeeda ay samaysato iyadoo isticmaalaysa ilayska qoraxda carbon dioxide ee hawada ka soo nuugayaan iyo biyaha ay dhulka ka soo nuugayaan ayay u fududeynaysaa. chlorophyllka ayaa u fududeynaya inay cunto ka samaysato dhirtu. sidoo kale photosynthesis processna waxaa loola jeedaa ama habka ilays cunto ku samaysashada waxaa loola jeedaa processka hadda aan sheegayay waana qaabka dhirtu cuntadeeda u samaysato. marka waxaa suuragal marka inay kaalin ka qaadato ilays cunto ku samaysashada hawshaas inay fududeyso ayaa suurtagal ah maadada loo yaqaano kobar ama maar. haddii aan u gudubno astaamaha yaraanta maarta waxaa naadir ah in ay dhirta ka muuqato astaamaha yaraanta maartu maadaama ay ku jirto in badan oo ah daawooyinka fangiga lagula dagaalamo. macnaha daawooyin badan oo beeraha lagu daaweeyo ayaa dhismaheeda waxaa ku jira maar sidaa daraaddeed yaraanteedu geedaha kama muuqato oo daawadaas ayay ka heshaa. marka maartu ku yaraato dhirta caleemuhu waxay yeeshaan midab jaalle khafiif ah kadibna waxaa midabka cagaaran dhumiya caleemaha ugu sarreeya. macnaha caleemaha cusub oo ugu sarreeya ayaa midabka cagaaran ayaa ka ba'a. qodobka saddexaad waxaa yaraada koriimada laamaha iyo caleemaha yacni koriimada laamaha yaryar oo hadda soo baxaya iyo caleemahaba koriimadoodu way yaraataa. 4 maartu markay aad ugu yaraato dhirta waxaa dhara isku soo urura ama qallayl muujiya oo isku soo laabma laamaha cusub kadibna way dhintaan sida idinka muuqata sawirka background-ka nooca. 5 waxaa gaabta fogaanta u dhaxaysa laamaha. la fogaanta laamaha waxaa ula jeednaa laanta halkan ku taala midna caleenta halkan ka soo baxaysa iyo caleenta labaad ee ku xigta inta u dhaxaysa ayaa soo gaabanaysa. 6 waxaa yaraada dhacaanka miraha liinta noocyada liinta ee kala duwan. macnaha geedaha liinta sida bambeelmada liindhanaanta mandariinida oranjada iyo wixii la mid ah dhammaantood marka maartu ku yaraato geedka liinta biyaheeda ayaa yaraanaya. 7 astaamaha yaraanta maarta ee baradhada waxay isu egyihiin astaamaha yaraanta ee birta manganiiska iyo salfarta. kuwan waa qaar ka mid ah caleemo kala duwan iyo dalagyo kala duwan oo ay ka muuqato astaamaha yaraanta maarta. halka waxaa nooga muuqda yaanya kaaga muuqata yaanyadu waxaa arkaysaa caleemaheedii oo soo duubmay midabkii oo jaalle khafiifa ayaad arkaysaa qaarkood qaabkaas ayay u muuqanaysaa. insha allahu tacaala casharkeena maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa. aad baan idinku mahad celinayaa. haddii aad casharka wax ka faa'iiday fadlan ha iloobin inaad tidhaahdid subscribe like and share. aad baan idinku mahad celinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.